naf caafimaad weydii cuudna ha weydo joogtaynta isbeddellada casri kasta waa sunnaha nolosha ee sarjaraya horumarka nolosha aadamaha midda calanka u sidaana waa daryeelka caafimaadkeeda caafimaadku waa baddaas oo ninba meel kaga aaday kani waa mid koobsaday inta looga golmooyahay wax ka qabashada cudurrada kani waa cisbitaalka baynax polyclinic ee magaalada burco waa goob caafimaad iyo caadadeed inuu bidhaamo oo bilaado dul iyo hoos baynax polyclinic waa bah kale oo ka mid ah mubaarak pharmacy group in ka badan 20 sano oo ay shirkadda caalamiga ah ee mubaarak group ku keenayeen dawooyinka tayo lagu tilmaansado haddase waxa ay kuu soo kordhiyeen baynax polyclinic waa goob caafimaad oo jaadgooni la ah adeegyada caafimaad ee ay bulshada u qabanayaan cudurrada ay daweynayaan iyo dhakhaatiirta caalamiga ah ay kaaga keeneen dunida daafaheeda kala duwanna waxaa ka mid Dr. Elias Samuel oo ku takhasusay cudurrada urgujirta waxa uu takhasus sare ku qaatay la tacaalidda xanuunada ku dhaca urgujirta iyo cudurrada guud baynax polyclinic waxaa sidoo kale kugu diyaara Dr. Alexander Francisco oo ah xildheere iyo khabiir caafimaad oo shahaado sare ka haysta xanuunada ku dhaca lafaha isla markaana wax ku soo bartay dalka Kuuba oo ka mid ah dalalka dunida foolaadka u ah cilmiga barashada caafimaadka baynax polyclinic oo ah mudanka goobaha caafimaad ee casrigan ee lagaga furay magaalada Burco ayaa ah goob caafimaad oo kugu diyaarsan yihiin shaybaadhkii ugu casrisan iyo dhakhaatiir leh takhasus caafimaad oo caalami ah waa kan Dr. Maxamed Aadan Mir maamulaha guud ee shirkadaha Mubaarak Pharmacy Group iyo baynax polyclinic oo faahfaahinaya adeegyada caafimaad ee casriga ah ee aad ka helayso baynax polyclinic waxaan u sheegaynaa dadweynaha reer Burco ee gobolka Togdheer inaanu keenay hadanago ah baynax polyclinic pharmacy egas Mubaarak Pharmacy dhakhaatiirtaas oo aad loogu baahnaa dalka iyo gobolka Togdheerba maadaama saan ka warhayno dadkeenu halkaa wadadaas dheer si hayo oo qofkii halka marka uu xisbi garan waado uu qaban jiray dalka Itoobiya aad hadda kaga reysanaysid waad ka helaysid gobolka Burco adigoo aan rafaad gelin meel dheerna qaban waxa kaloo aynu haynaa qalabkii caafimaad oo dhakhtarkaas qofka ku baarayay waxaanu ku ogaanayay hadday tahay shaybaad casri ah hadday tahay ultrasoundkii oo zoordiya oo qofka lagu eegayo dhammaan xanuunada qofka abishinka ka caawinayo oo dhan waxa kaloo ka helay sida hore nooga barateen Mubaarak Pharmacy ahaan dawadii tayada lahayd inaan haddana inii soo kordhinay dhakhaatiirta takhasuska ah ee u baahan yahay dalkeenu iyo gobolkeenuba inaa halkaa nagaga wahaysaan oo waa dhakhaatiir la soconaysa qofka dhaatadiisa oo qofku helayaa qof kasta oo u yimaada dhakhtarka xogtiisa oo dhammaystiran hadday tahay maalinta uu saa u yimi ma dhici doonto waraaq dhakhtar baa fartii qalqaloociyey ma dhici doonto waraaq baa iga luntay ma dhici doonto shaybaadh baa waayey dhammaan dhaatadaada oo dhan waad helaysaa xilli alaala xilligaad u baahato ayaad ka helaysaa farmasiga iyo goobta caafimaad ee baynax polyclinicba iyadoo dhammaystiran hadday shaybaadh tahay iyo hadday tii dhakhtarka tahayba dhammaanteed iyadoo oo haddii aad 2 sano maqnaato iyo haddii aad sanad maqnaato mar walba dhaatadaada lagu keydiyey iyo xogtaadii oo dhammaystiran ayaad ka helaysaa sidaa hore noo bartay waxaa wahay hogaamiyaha dawada ee gobolka Togdheer iyo Somalilandba ugu tayada fiican inaan keeno waxaan nahay shirkadda kaliya ee dawadeedu ku timaado thermometer ama temperature ilaa maalinta ka soo dhaqaaqo UK ilaa maanta warehouse ka imanayo ula socdo oo dawada inaanay ilaa inta ay taraga geliso aan isbedelin waxaan bulshada gobolka Togdheer ka codsananaa inay dhakhaatiirtaas ogaadaan la socdaan oo ay soo gaaraan waxaad kaloo helaysaa haddii aad maqrabka timaadid iyo haddaad lixda timaadid haddaad shanta timaadid mar walba oo lagu baarayaa oo lagu sheegaranayaa jawaabtaadina si degdeg ah helaysid xilliyada dhakhaatiirtu shaqaynayso waa 7 subaxnimo ilaa 7 habeenimo maalintii gelin kora shaqaynaa 5 saac 7 ilaa 12 galabtii soo gelay 4 ilaa 7 habeenimo intaana waad ka helaysaa dhakhaatiirta ku shaqaynaysa shaybaadhkiisa iyo dawadii waxa iyo farmasiga kalay oo kaga maaran baynax polyclinic Burco baahiyaadka caafimaad
ee aad u aadi jirtay dalka dibaddiisa iyadoo taa beddelkeedana dalkaaga iyo degelka aad joogto lagugu keenay dhakhaatiirta caalamiga ahayd ee safarrada dheer loo geli jiray iyadoo intaasi ay kugu heliyaan shaybaadhistayaal iyo xirfadlayaal caafimaad oo loo diyaariyey aqoon durugsanna u leh qalabka iyo shaybaadhada casriga ah ee kuugu diyaarsan Faynax Polyclinic Burco